السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسورة على قليل ديزاينز أمر والبقالة سوتان علمي كمبيوتر كي برامج ملتي ميديا عشركة محوك سابسيا سيدا لون الشخصية ايدي كار أما وحوال بعض استعماله ايدنتي كار عدين خفك مرور بحن بهنتي سو قوام اسكولة استعمال جامعة أما الشركة وحلو باهي هاي ايدي كار كانوا محوكا يساعدا خفك أن وربحنتي سو قواميش كشقية إنها توقاتد ayaan kula wadaagi doonaa insha allah. haddii aad ku cusubtay janaalkeena fadlan subscribe, like, share si asxaab badan ay uga faa'iideysta adigana aad ka mid noqotid mar walba daawadaha ugu horeeya daawada fiidiyoyada ayaan soo gudbino. kusoo dhawow alqalid designs mar kale. haddii aad ku cusub tahay janaalkeena subscribe garee gambalaalkana furo. marka ugu horeyso waa inaad soo kicisa illustrator file inaad lahayd kadib new inaad lahayd keshan waxaad ka dooranaysaa shan aan tagno tartiib qaybtaas kor waxaad qoraysaa id card magac ayaad ku qoraysaa id card ayaad ku qoray qaybtan custom ku ahaado qaybtan id card laba page ku kooban yahay meeshan ayaa waxaa bedelaysaa inji 3 waxaa ka dhigaysaa meeshan 2 widifka joogana waxaad ka dhigaysaa 3.5 oo inji ah oo meelaha wax ma ka bedelaysid oo saas u dooratay resolution-kaada oo kana dilacay meesha ka qarsantahay meeshan fur meeshan ka dooro inta waxaad dooranaysaa CMYK cadaalad inaad daawactid kadibna okay ayaa leedahay cabirka kugu soo bandhigay qaybtan u baahan tahay control 0 leh saas oo kugu soo bandhigaa kadibna loogadiyaa soo diraagareynaynaa automatically intaan keena u baahannahay waxaan tegaynaa computerka gudihiisa ama open aan leedahay haddaa rabtid si kugu fudud adigoo ogtahay haddaa rabtid inaad furtid faylasha meesha ugu dambeeyay inaad geshid okay waxaa u baahan tahay loogadaada inaad soo qaadatid okay waa tana u baahanahay keliya inta soo diraagareyna qaybta intaan keensanaa okay aan kusoo celiyo oo soo diraagarey ujeeda automatically laba xabay noqotay hal xaba u baahanahay kan minus leh shift click ku sii alt iyo shift isla qabo yaree markaas control plus leh waxaad rabtaa hadda nashqadii hadda ayaad abuureysaa inta ka horeysa waxaad samayn kartaa loobada inaad saas u daraageleysid ayareysid inta geysid kadibna magac ayaad ka qoreysaa meeshan keli ku sii meeshan textiga kadibna waxaad qoreysaa qoraalka shirkadaada ugu talgashay ama qoraalka shirkadda ay leedahay okay fartan ayaan bedelaynaa farta inta badan shirkadda ay leedahay alqalid designs uu leeyahay aan soo dooranaynaa null shock la yaqaan fartan waxaa kasoo degsan karta website-ka dafonti website dafont.com ayaa leedahay farta null shock rg bold ayaa dooranaysaa kadibna inta ayaad keensanay alt iyo shift isla qabanaysaa waad haweeneynay qaldan oo ujeeda inay keligood waxaa u baahanahay inay isla socoto okay meeshan gii hadda caadi waaye alt iyo shift qabo hydrobet ka dooro kalarka ka door wuxuu sameynaa kalarka uu ka kooban yahay loogada ayuu sameynaa saas u daraagarey qaybtan yaray alt soo jiid alqalid designs alt iyo shift isla qabo hydrobet door kalarka kale jaalaha sii labadan isla qabo saas u daraagarey qaybtan kusoo dhawey halahan waxaa u baahan tahay grouping aad ka dhigaysa right click grouping hadda meesha isla qaadid way la qaad samee haddaa rabtid waa kala qaadi kartaa right click and grouping okay hadda tan u baahan tahay loogada in si geeso hadhowdii waxaan rabaa inaan kasii samaystay على أساس مركز اسمه right click group ده
intaas saas markaa u samaysid qaybtan waxaa samayn kartaa background inaad samaystid aad soo gashi kartaa xitaa qaybtan background ayaa ka dhigi kartaa background adiga aad rabtid haddaad rabtid oo samayn kartaa laakiin haddaad rabin waa iska dhaafi kartaa. Okay, background u baahan tahay shape-ka ayaad soo qabsanaysaa inta uu ka kooban yahay colorka uu sameeyay right click leh arrange send back qaybta dhex u dir sababta qaybta colorka uu maxaa lama soo bandhigin colorskan dooro meeshan color isku dhex jiraan sababta color kale kala duwan ayuu inta ku soo bandhigaa wajida direct meeshan color bedel colorka inta ka door isbedel ku dhacay kaasoo samayn kartaa ama waxaad dhigi kartaa inaa inta saas u bedeshid samayn kartaa. Okay, intaas waa samayn kartaa ama colorska kaleeta uu leeyahay saas u dooran kartaa wajida color gradient yalla color isku dhex jiraan isku lafaaqan kadibna shape-kan soo qabso oo roundiga shift la qabo ama caadi u qabo waa isku mid stroke sameeya asiga strokes inta rabtid ka dhigo 5 10 haddaad rabtid 5 ka dhigi kartaa si u yaraado haddaad rabtidna waa kasii yareyn kartaa 3 ayaad ka dhigi kartaa. Okay, waxaan rabtaa sawirka inaad soo gelisid meeshaani inta sawirka soo gala calaamada waa inaad saas u doorataa 4 gees ay ku noqonaysaa 5 kadibna place inaad dhahdid waxaad dooranaysaa sawirka meesha uu yaalay dhida uu yaala multimedia picture-ka ugu horeeya waa kana sawirkan place oo ku weydiina meesha dhex dhigaysa oo ku doonaysaa alt iyo shift isla qabanay yaray weli kadibna calaamadan jeeg minus saas waxa ujeedaa kadibna waxaa samaynaysaa numberka inaad u siisid ID-ga ID number ayaa leedahay kadibna hydrobetka ayaa dooranaysaa okay hadda waxaa ii dooran background-ga hasaa u dooratid layerska dooro textigaada layerska formation textiga aad u baahan tahay ayaa tegaysaa kadibna kan aad u baahan tahay majeedo markii jeeg ka qaadi kartaa darajadaas oo samayn kartaa meeshan waa kale kana u baahan tahay kana check click ku siinaysaa kadibna waa daraagireynay hydrobe dooro colorka uu ka kooban shirkadda ayaa dooranaysaa waa kana loo daraagiray alt iyo shift isla qabo okay control x the background-ga markaan dhameyn ayaan geenaynaa meeshaasi qaybtan kaleetana geenaynaa. Okay, qaybtan markaas waxaa samaynaysaa text type tool soo qabso meeshan halahan select garay farta bedel farta waxaad ka dhigaysaa Arial far caadi oo narrow qofka magaciisa oo saddexan ayaad qoraysaa iyo title-kiisa fartan size-keeda aad u weyn yahay 12 ka dhig meeshan si uu soo baxo oo farta geeska gees soo tago title-ka designer halahan si ku door karaa waa ina hydrobetka aad doorto colorkaas aad doorto okay kadibna bold ayaan ka dhigaynaa issue date kala bixiyay waxaa waaye taariikhda maanta eber 5 ama eber 6 bisha 9 2019
expire date, eber 6/9/2020 ayuu dhacaa kaarkan business kaarkan kana. okay, qaybta kale waxaa qoraysaa taleefanka qofkani talkiisa, eber 6/2. sidaas markaa intaas u sameysid waxaa sameyn kartaa qaybtan colorska dhan bedel. color waxaad ka dhigtaa madow qaybtan bedel. designerkan fartan waxaad ka dhigtaa bold, far ifayso. inta sidaas markaa u sameysid control v de backgroundiisa soo keentay. qaybtan kale ayaan tagaynaa haddana. okay, alt iyo shift isla qabo backgroundiga kadibna si uu ku weynaatid meeshaan. okay, backgroundiga alt click ku sii, alt qabo backgroundiga. ujeedaa business id card saas oo sameyn kartaa. qaybtan kaleetana waxaad ku qoraysaa barcode. barcode waxaa loo yaqaanaa id qofka shirkadda ay siinaysa lacag. hadii waxaa loo yaqaanaa inta badan hadii computerka lagu aadiyo barcode-kan uu kugu soo bandhigaya farta uu leeyahay, kugu soo bandhigaya shirkadda. kadibna hydrobet ka dooro. back dheh qaybta dambe ilaa ku aragtay meeshan barcode dooro. hadda alt iyo shift isla qabo, ma soo muuqato. hydrobet ka dooro, cadaan ka dhig, madow ka dhig. far alaal fartii kusoo bixaysa ayaad dooranaysaa. muhiimada waxaa waaye waxaan inaad soo bixisid, soo muujisid. computerka lagu aadina automatically ayuu soo baxaa. intaas aynu kusoo gabagabeyneynaa. haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe garee, like garee si asxaab badan ay ugu faa'iidaystaan, adigana aad ka mid noqotid mar walba daawadaha ugu horeeya daawada fiidiyoyada aynu soo gudbino.